kulan wanaagsan ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. saaxiibayaal waa muuqaal kale oo aan uga hadlayno arrimaha jacaylka. maantana waxaan ku soo gudbinaynaa xubinteennii toosiyaha jacaylka. haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh oo furo gambaleelka si aad noola socoto muuqaaladeena kale insha Allah. waad mahadsan tahay. khiyaanada qalbiga ayay wax yeeshaa ee ma qaboojiso. qaarad walba oo dunida ahna waxaa jooga kuwo ka quuta oo doonaya inay noqdaan qalanbaawiyaal dadka kala dila. waxaan idinla wadaagaynaa qiso ku dhacday haweeney ninkeeda khiyaantay kana dhalatay damac katiirnimada ragga qaarkii ay ku dhaqmaan. waxay ahayd sheekada mid ku bilaabanaysa shakiga badan oo maseerku buddhiga u yahay ee ay haweenka qaarkood marka la guursado iyo ka horba ay dareemaan. gabadhan ayaa ninkeeda waxa uu ahaa qof shaqo u kalaha subax walbo galabtiina yimaada xaafadda. ciyaal uma aysan dhalin ama caruur guriga ma aysan joogin oo waxa ay ku mashquusho ma aysan haysan. gabadhan xaaska ahayd iyadoo kabta la gashatay saygeeda. waxay ahayd mid aad uga da'yarayd cumriga sanadaha marka la eego wiilka ay wada joogeen, balse caqliga ayay ahayd mid fariid ka ah oo qiyaas ku darsi jirtay xaalad walba oo markaas uu ku sugan yahay. waxay istustay in ninkeedu yahay mid shabeelnaagood ah oo gabdho kale la shukaansada inta uu iyada ka maqan yahay. balse waxaa dhacay in qadka internetka ay ciwaan kale ka samaysatay si ay u ogaato bal waxa qalbigeeda u sheegayo waxa ka runka ah. qadka ay ku darsatay wuuna soo dhaweeyay wiilkii ay wada joogeen, balse qof kale ayay isaga dhigaysaa. waxay u bandhigtay xiriir walaalnimo, wuu ka aqbalay. waxay weydiisay inuu yahay mid xaas leh iyo in kale. wuxuu u sheegay inuu yahay xaas leh balse caruur weli uusan dhalin. xaaskiisa ayaa isaga dhigaysa qofka. gabadhii ayaa markan waxa ay si xog ogaalnimo ah u rabtaa bal inay ogaato wiilkan iyo waxa uu qabto, waxa uu run iyo been ka sheegayo. waxa iyadu u sheegtay in ay ka shaqayso hay-ad oo $10,000 ay bil walba qaadato. waxaa hunguri uu ka galay in xiriirka gabadhaas kaga faa'iideysto si ay lacagta uu u shaqeeyay iyo midda iyada ay shaqeynayso midkood ay safe u noqoto ama meel ay dhigtaan. waxay dad badan u arkaan in gabar shaqayso oo la guursadaa ay ka faa'iido badan tahay gabadha guriga iska fadhida marka la guursado, taas oo qoyska manaafacaad iyo faa'iido badan u keenaysa labada lacag ee la wada shaqeeyo. wuxuuse ilaaway ninkani qadka qofka ka shukaaminayo in ay tahay xaaskiisii uu guriga ku ogaa, taas oo markii dambe khiyaanadii ay samaynaysana ay ku biyo shuban doonto meel haadaana. waxa uu dhowr jeer weydiiyey bal in live ama maqal ay isku bartaan. sababo badan cudurdaar been ah ay samaysay. waxa ay ugu dambeyntii keentay in ay ogolaato. waxay diidaysaa inaysan fashilmin, waayo waa ninkeedii ruuxa ay qadka kala hadlaysay oo shukaansiga beenta ah ay ku dilaysay. ugu dambeyn waxay maalmo wada hadlayeen kadib waxa uu dalbaday in ay kulmaan ama ay nabadgeliso oo aysan qoraal dambe qadka ugu soo dirin. calaayi xaal waxay noqotay in ay ku ballameen meel dadka ku kulmaan. way soo labisatay, waxay soo xiratay indhashareer ama niqaab qofba sida u yaqaano. waxay soo istaagtay ballanka halka uu ahaa. wuu iskeenay isagii oo qudhiisu isa soo jaakeeyey soona labistay. balse waxa dhacay ayaan halkan ka ogaan doona. kursiga ayay uga sii horeysay, ma aysan la hadlin daqiiqado. wuxuu ku wareeray in ay dhagool tahay ama aysan waxba maqlin. wuu la hadlaa, wayse u jaakirtaa oo ay ka aamustaa. cabaar ay fadhiyeen isagoo quus jooga ayay niqaabkii ama indhashareerkii iska furtay, mise waa gaclisadiisii uu guriga ku ogaa. dhiiqo ayuu dhexda ka fadhiyaa ninkan. wuxuu sameeyo ayuu garan waayay.
waxay teleefoonka durbadiiba ku wacday walaalkeed si uu goobjoog uga noqdo furiinkeeda. buuq ayaa meeshii ka dhacay, waxaana waaga uu ku bariyey ninkii. ugu dambayn xal ayaa la raadiyey oo guriga ayaa loo kaxeeyey. kadib waa la xalliyey. ma isagiiba mar dambaba qad gabar magaceeda wadata kala hadla waxa uu og yahay dhibkii ku dhacay awgeeda. guud ahaan daawadayaal intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa qisadan oo aad ka daawanayseen janalka Salma Vlog and Entertainment. anigoo xasan xayi cabdulaahi ayaa idinla socodsiinayay. inta aan dib dambe isku arki doonno sidaas iyo nabadgelyo. miyaadan arkaynin dhaqaagaan markay ku arkaan adiga xiisad ku abaarayo qalbiga